kulan ay maanta xildhibaanada golaha shacabka ee dowladda Soomaaliya ay kaga doodi lahaayeen ammaanka qaranka ayaa buuq ku dhamaaday kadib markii guddoonka golaha uu dalbaday in saxaafadda dibadda looga saaro kulankaas. Xildhibaanada qaar ayaa diiday, isla mar ahaantaasina arrintaasi waxay sababtay in kulanku uu soo gabagaboomo iyadoo sidii la rabay uusan u qabsoomin. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. inuu furmo fadhiga wuxuu ku bilowday sawaxan waxayna salka ku haysa saxaafadda in banaanka looga saaro golaha. Fadhiga maanta waxaa looga hadli lahaa amniga qaranka. Waxaa soo xaadiray taliyaha ciidanka booliiska, militariga iyo asluubta. Fadhiga muusan joogin kusimaha taliyaha nabad sugidda sirdoonka qaranka. Gudoomiyaha golaha ayaa cod geliyay in fadhigu uu noqdo mid xiran. waxaan soo jeedinaynaa in shirkan uu noqdo shir albaabada ay u xiran yihiin. waxaan rabnaa marka golaha arrinkaasi inay nala qaataan aan rabnaa. ma nala qaadateen? waxaase ka hor yimid xildhibaanada golaha qaarkood oo diiday in saxaafadda banaanjoog ay ka ahaadaan fadhigan muhiimka ah ee looga hadlayo amniga. gudoomiyaha golaha ayaa mar kale ku celiyay in saxaafadda banaanka loo saaro. 104 codaysay majority in loo hoggaansamo fadhigan uu noqdo mid xiran. ciidamada amniga ayaa bilaabay inay riixriixaan saxaafadda banaankana u saaraan. waxaase ka hor yimid xildhibaanada oo albaabka istaagay dalbana saxaafaddu inaysan baxaynin. xildhibaan cabdiraxmaan xuseen odawe ayaa ku eedeeyay xukuumadda inay cuuriyaaminayso golaha muddadii 2 sano jirtay. runtii ayaan darro weyn yaa waxay tahay in golihii shacabka matali uu awoodi waayo inuu waajibaadkiisa guto. waxaad ka waraysaan xukuumaddu golaha shacabka 2 sano la soo dhaafay oo dhan xadgudub joogta ay ku haysay, gudoomiyihii ka bedeshay, gudoomiyihii kale cunaqabataysay. haddana waxay u soo dhigatay inay golihii sida ay rabtaa iyadu ka yeesho. waxaad ka waraysaan magaalada Muqdisho duruufta ka jirta, qaraxyada ka jira, amniga dadka ka wakiilka golaha shacabka aan wakiilo annaga dadkii aan u nahay, dadkii maalin walba qaraxa dhacay. marka waxay ila tahay mas'uuliyad darrada hay'adaha amniga ee ahayd in la question gareeyo iyo waxay rabtaa inay ka dhuuntaan oo dadka Soomaaliyeed uga dhuuntaan runtii iyo mas'uuliyadda loo dhiibto. aniga waxay ila tahay madaxweynaha mas'uuliyadda ka saaran dadka maalin walba dhimanaya magaaladan ku dhimanaya waxaan xal ahayn oo ahayn jidadka in la xiro loo haayana male. xildhibaan Canab Cilmi ayaa sheegtay inay ahayd golaha inuu hor yimaado madaxa sirdoonka oo maanta fadhiga aan joogin. aanu yeednay hay'adda sirdoonka ma ku jirta annaga waxna loo kale taliyaha militariga iyo taliyaha booliska iyo 2 wasiir oo siyaasiyiin ah oo xildhibaan ah. waxaasoo dhan maanta ka mudan inaan helo hay'adda sirdoonka qaranka. meeday hay'adda sirdoonka qaranka aanu dhindhi hay'adda sirdoonka qaranka waa la diiday inay timaado. waxaa maanta ummadda Soomaaliyeed xasuuqayana waa indhayn iyo sakuurad iyo sirdoon. ma aha cadow soo weeraraya wadankii, ma aha ciidamo xoog leh oo wadankii soo galaya. waa wax u baahan in la daadejiyo amniga oo shacabka la gaarsiiyo oo hay'adaha sirdoonku ay shaqeeyaan. xildhibaan Cabdishakuur Mire ayaa ku eedeeyay xildhibaanada qaar inay ka hor yimaadeen codka loo qaado fadhiga ahaa inuu noqdo mid xiran. sida dastuurka iyo xorowsaadku dhigayaan inuu fadhigan noqdo fadhi xiran oo warbaahinta banaanka loo saaro. tiina waxaa ka hor yimid isla xildhibaanadii mooshinka keenay soo jeedinta in laga doodo amniga. waxay ka hor yimaadeen xorowsaad ka hor yimaadeen, waxay ka hor yimaadeen dastuur ka hor yimaadeen, waxay ka hor yimaadeen codkii la qaaday. fadhiga golaha ayaa ahaa mid jahawareer ah iyadoo saxaafadda marba dhan ay u eryanayeen ciidamada amniga halka xildhibaanada diidan ay hor istaageen in saxaafadda banaanka ay tagaan. gudoomiye Mursal ayaana si lama filaan ah mar qura ugu dhawaaqay in fadhigu uu xiran yahay. kulanka annaga maanta waa xirnay uma xiran. Cabdulqaadir Okay, VOA Muqdisho.